wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta dawlad goboleedka Jubbaland oo ugu horeeyo madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoowe gudoomiyaha golaha shacabka iyo madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland oo shir jiraad ku qabtay qaybta nasashada ee garoonka diyaaradaha ayaa madaxweynaha Jubbaland waxa uu wafdiga gudoomiyaha uu ku soo dhaweeyay magaalada Kismaayo ee xarunta dawlad goboleedka Jubbaland gudoomiye adiga iyo wafdiga ku soo dhawaada magaalada Kismaayo nimankiini waay meel dheer ka weydaan meel dheer uga socotaan aad baan ku soo dhawaana ku faraxsanahay kala soo qaybgalka iyo inaan maanta halkaan lagu soo booqataan وما أبشر له عركي الرابع الصاحب أنا ما ريال بركات مركب بركاتي من الروم كهذا كم قطايا طالب كوحال له وتفاعل حسن مركب هذا وان ويكو سير مع العليا سود هذا إن شاء الله عرفتيني أنا نقولون في التام برلمان كريم أنا اللي كلام الله قدر دون هذه لا وحبنا لا يعرف صوتها ولا شعب يقرن كوا golayaasha institutionada waddanka ugu muhiimsan masiirka ummadda iyo mustaqbalkana wax badan gacantooda ay ku jirto wixii tale nala qumanayo gudoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa uga mahadceliyay madaxda iyo shacabka dawlad goboleedka Jubbaland sida wanaagsan ay ugu soo dhaweeyeen magaalada Kismaayo madaxweyne mudane gudoomiye mudane yaal dhammaan xildhibaanada golaha وكيلة شعبية ومواطنين جبلان يقدمون سلام دينا يوم هاد جارع والدين هيو مثلا مدحوين يقدمون وحيدهم هاد علينا يعني دعوة أن نوصل درتين والسوق يجيبني سفر حدله يا ما حكم قرشها ما يبقى عن ولايات جنت الجبلان لما توينا العيد لي أنا ونبقى horeen waa noo socotay laakiin si adkayno oo waliba isdhaxgal oo aan sameeyno waxa ila socda dhammaan guddiga oo 15 guddi ee golaha shacabka madaxdooda madaxweynaha waxa ila socda dhammaan guddiga 15 guddi oo ka koobnaa golaha shacabka inay isdhaxgalaan guddiga kala tafsiiriyaan iyo qorsooyin badan kale aan ka hadli doono xagga siyaasadda xagga jinta iyo amniga iyo siyaasadda waxaa doona insha Allah waana raxmad gaar ah roobna aan la kulanay adigana taa waxay ku tahay astaan in la tadawada ay tahay qalbi quran ama socodkiina way ku badan doonaan insha Allah Ibrahim Gudle Isxaaq warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Kismaayo.